أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today waxaan ku bilaabaa su-aal presentationkan. waxaana rabaa su-aashaas inay iga jawaabtaan. weligaa qof ma ku tilmaamtay, su-aasha waxaa waaye, weligaa qof ma ku tilmaamtay aqli yaraan? weligaa qof ma ku tilmaamtay inuu yahay qof maangaaba? waxaan jeclahay su-aashan in si daacadnimo ah looga jawaabo. yacni hadday noloshaada mar uun soo martay oo aad xasuusato oo aad qof ku tilmaamtay erayadaas hadda kor aan kusoo sheegay, so waana arrin dhacda. come on, wiilasha, gabdhaha, somebody. aniga marar badan ay soo martay inaan dad aan ku tilmaamo inay yihiin maangaab ama aqlilaawayaal. okay, gabadhaas waxay tiri qofaan waxaan ku tilmaamay inuu aqli yar yahay. waxaa u malaynaa inay tahay qofka noogu honestsan 5 stars inaan siino waaye. arrintaas waa jirta, waana dad badan ay ku dhacdaa. kulligeenna waa soo wada marnay, dad badan inay soo sameeyaana dhici karto. weliba waxaa jira dadka ugu yeera inay xoolaha oo kale la mid yihiin. waxaa jira dadka ugu yeera inay la mid yihiin xoolaha balka daaqaya oo kale. marka erayo badan oo kuwaas la mid ah oo dadka ay isticmaalaan waxay tilmaamayaan in ay yihiin erayo liidma ah. yacni qofka aad ereygaas ku tilmaamayso waa qof aad u liiday, aad ku liidayso inaad ka aqli badan tahay. waa qof aad ku liidayso inuu kaa hooseeyo. waa qof aad ku liidayso inuusan kula mid ahayn. waxaan qofkaas ku liidayno waxaa waaye naafo ama curyaannimo ku timid qofkaas aqligiisa ama garaadkiisa. waxaan qofkaas ku liidaynaa waxaa waaye wax ku dhici kara qof walba, meeshuu dooni ha joogo, da'duu doonina ha jire, yacni bulshada qaybaheeda kala duwan. curyaannimadaas aqliga ama curyaannimadaas aqliga ku timaada ayaa afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa intellectual disability. taariikh ahaan intellectual disabilityga markii hore waxaa loo yaqiin mental retardation. ereygan retard macnihiisa waxaa waaye wax dhiman ama dahsan. waxaana laga waday in qofka aqligiisa wax ka dhiman yihiin ama habsan uu ku jiro aqligiisa, ama markaas aqligiisa uu yaraaday oo aqligiisa ay wax naaqus ka yihiin ama wax ka dahsan yihiin. sidaas awgeed waxaa suuragal ah in aan aragno dad yacni shaqsi ku nisbaynayo in uu u dhaqmaayo sidii ilmo yar oo kale, sidaan hore usoo sheegnay. dadka qaarkiisna ay ka soo jawaabeen. insha allah mar kalaan fiirinaynaa jawaabaha dadka ay soo bixiyeen, iyo ama inuu qofku u dhaqmaayo si markaas aan laga filaynin oo markaas la qaldan dadkaas meesha jooga. haddaba markii baaris lagu sameeyey waxyaabaha keena aqli yarida, sababaha keeni kara inuu qofka aqligiisa yaraado, waxaa la ogaaday in dadka aan aqli yarida ku tilmaamayno in wax maskaxdooda ka maqan oo xubina aysan jirin.
wax ka soo daahay ay sugayaanna aysan jirin, balse waxaa dhici karta in ay jirto in qofka ka naafoobi karo ama ka curyaami karo garaadka ama aqliga, sida dadka uga curyaamaan ama uga naafoobaan xubin jirkooda ka mida. markaan ka hadlayno aqliga ama caaqilnimada, fariidnimada, maskax ficnaanta ama intellectualka qofka, waxaan ka hadlaynaa wax loogu yeero cognitive capacity oo ah awood aqliyeed maskaxda bini aadamku leedahay. awoodda maskaxda leedahay ay ku soo saarto aqli la ambaqaadi kara caalamka markaas ay ku dhex jirto ama ay ku nooshahay, oo awooddaas oo ah awood allahu subxaanahu watacaala bini aadamka ku karaamaystay oo siiyey. khaasatan waxaan eegi doonaa oo ka hadli doonaa xubinta saldhigga u ah ee loo yaqaan central nerve system, oo aan ka eegi doono in ay u shaqaynayso si caafimaad qabto. waayo waxaa dhacda marmarka qaarkood in central nerve systemka u habaysmo ama u kubco ama u koro si qaldan, oo qofka markuu yaraa, markuu sabi ahaa, ay usoo habaysmaan sidaas qaldan una koraan. waxaa dhici karta in qofka ku dhacday ama ay ku timid dhaawac, dhaawacaas oo saameeyey xubno muhiim u ah qofka sida xasuusta, fahamka, fikirka. waxaa kaloo dhici karta in waxaasoo dhan aysan ahayn, qofkan markii uu soo koraayey si qaldan wax loo baray oo maskaxdiisa la qabsatay oy la soo weynaatay, oo wax kaloo markaas ama challenge gareeya ama wax kale oo furfura uusan helin, sidaasna qofkan uu ku weynaaday oo maskaxdiisa ay saas ku noqotay. si kastaba xaalka ha noqdo, markii si cilmiyeysan loo baaray wax badanna laga fahmay waxyaabaha keena aqliyarida, ereygii mental retardation beddelkiisa waxaa lagu beddelay oo la isticmaalaa today, la isticmaalaa intellectual disability, oo macnaha loola jeeda yahay in qofkan uu sidii ilmo yar u dhaqmaynin, sidii xawayaanna uusan u dhaqmaynin, uu qofkan ay ka tahay aqligiisa intaas, oo xagga aqliga ama xagga fikirka ama xagga fahamka ama xagga communicationka ama xagga dadla dhaqanka ay ka jirto curyaannimo ama barasho. qofka markaas siyaalo kala duwan qaarkood looga daaweyn karo, qaarkoodna tikniikyo kala badan wax loogu qaban karo. haddaba magacyadan mental retardation, intellectual disability oo keliya ma aha. hadda waxaa adduunka hadda lagu doodaa in magacaan lagu bedelo, weli lama bedelin, laakiin in lagu sii bedelo oo loo bixiyo intellectual developmental disorder. haddaba magacyadan waxaa bixiyo laanta caafimaadka adduunka sectionkeeda international classification of disease oo loo soo gaabsho ICD, oo kaashanaysa APA, American Psychiatric Association. marka qofka la leeyahay wuxuu qabaa intellectual disability, waxaa lagu arkaa ama laga dareemaa calaamado wada socda oo ku tusinaya in qofka fahamkiisa iyo fikirkiisa ay yar yihiin, taasoo ka imaanaysa in maskaxdii qaban lahayd shaqadan loo yaqaan cognitive functioning, ama kaga shaqaysiin lahayd wixii kaga shaqaysiin lahaa aqliga, ayaa si qalada u habaysan ama dhaawacanba. taas oo ah dabeecadda koowaad ee qofka lagu arko oo loogu yeero
criterion A deficit of intellectual functioning oo macnaheedu yahay shaqadii maskaxda oo daciiftay. haddaan balbalaariyo marka deficit of intellectual functioning waxaa iri waa daciifnimo laga dareemayo qofka sida qofka oo fikirkiisi yaraado oo ku fikiro waxaan da'diisa ama aynigiisa aan u qalmin. waxaa kaloo qofka lagu arki karaa xagga go'aan qaadashada, yani hadday wax ku imaadaan uu go'aan ka qaadanayo qofka waa ku adkaataa, mar walbana wuxuu u baahan yahay wax caawiya si uu go'aan ku gaaro, xataa ha noqoto laba qalin uu kala dooranayo. yacni wuxuu maraa qofka haasal badan u maraa inuu wax kala doorto, taasoo nolosha ku adkaysa markaas nolosheenna mar walbo waxaan kala dooranaa. so go'aan qaadashada qofka marka way ku adagtaa calaa kulli xaal, xataa cunta hadduu kala dooranayo way ku adkaataa. waxaa kaloo iyadana qofka ku dhici karta qofka oon isku shuqlin inuu waxyaabaha qaarkood fahmo, yacni xagga reasoningka ama inuu sababeeyo sababta, for example sababta ka dambaysa haddii wax la siiyo iskuma shuqliyo inuu fahmo wixii qofka iska qaataa, ama waa diida, yani sababta u diiday iyo reasonka ka dambaysa wax loo siiyey iyo reasonka u ogolaaday labadaba qofka ma garan karo, oo reasonkiyaa ka maqan. tusaale kale haddaan meeshaan idinka siiyo, qofka haddii amar la siiyo, markaan ka hadlayno xagga go'aan qaadashada iyo xagga fahamka go'aanka markaan ka hadlayno iyo xagga xukunka iyadana way soo gelaysaa. qofkii haddii amar la siiyo waxaa dhici karta amarkaas inuu fuliyo, mana isku dhiba inuu reasonkeeda raadiyo, wuxuu reason ka dhigtaa reasonkii hadba markaas la siiyo ama ugu muuqda inuu reason yahay, yacni kama fikiro mana falanqeeyo. dadka xagga xukunka marka laga hadlayo waa dadka ay ugu jecel yihiin dowladaha qaarkood inay ama hogaamiye ama se qof bulsho hogaaminaya ama madax ay ka dhigaan si ay markaas hawshooda ugu isticmaalaan. waa very dangerous people oo fulinaya markaas qofkii amarka u dhiibtay, qofkii uu ka dambeeyey oo keliya amarkiisu fulinaya qofkii isagoon garanaynin sababta ka dambaysa inuu fuliyo amarkaas. xagga problem solving hadday wax ku adkaadaan ama wax ku imaadaan iyadana dadkaas way ku adag tahay inay xaliyaan. xagga abstract thinking inay ka fikiraan waxaas way xaliyaan, waxayna always raadiyaan qof la xaliya ama si kale qof kale uga xaliya, iyaga maskaxdooda ma soo saari karto, ama hadday soo saarto way ku yar tahay inay resolution ama go'aan rasmi ah ka gaaraan oy problem ama dhibaato iyaga soo food saartay ay markaas xaliyaan. xagga qorshaynta iyadana inay wax ballaangareeyaan ama wax imaan doona ay sii fiiriyaan iyadana aad bay uga adkaataa. kuwaasi waa kuwa ku saabsanaa awoodda aqliga leeyahay oo yaraatay, waxaana lagu cabiraa IQ oo ah intellectual quotient. IQ waxaa lagu helaa da'da maskaxdaada jirto oo loo qeybiyey da'da qof ahaan aad jirto. si kastaba ha noqoto aniga qof asa muslin ahaan ma aaminsani IQ-ga in qofka aqligiisa lagu soo saari karo, even though aan macnaha bartay maxaa la yihahda caafimaad ahaan markaan baranayay aan u bartay IQ-ga, laakiin ma aaminsani in lagu soo saari karo. waxaa aaminsanahay aqliga qofka in qofka waa aqli badan yahay laleeyahay uu yahay qofka
allahu subxaanahu wa tacaala caabuda rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo sunnadiisana raaco. waxaa dabeecadda koowaad ee aan hore ku soo xusnay waxaa u weheliya oo u soo raaca dabeecado kale oo qofka lagu arko, sida qofka oo ay ku yaraato inuu bulshada dhex galo, in uu la qabsado bulshada. waayo qofka uma habaysna umana tababarna imageka bulshadaas inuu ka mid noqon karo, inuu dhex geli karana maskaxdiisaba kuma jirto. taasoo iyadana loo yaqaano criteria b, deficit in adoptive functioning, taas oo macnaheedu yahay in qofka uusan u habaysnayn una tababarnayn inuu bulshada dhex galo. taas waxaa keenaya waxaa waaye qofka waxaa ku yaraata ama uu lumiyaa kalsoonida asaga uu isku qabay qof ahaan, iyo inuu si xor ah uu wax u samaysan karo, taasoo afka qalaad lagu yiraahdo personal independency. wuxuu qofku doorbidaa ama ku qasbanaadaa inuu qof kale ku xirnaado oo uu dependent ku noqdo. waxaa kaloo dhacda in ay qofka ku yaraato ama ku adkaato inuu guto waajibaadkii lagu lahaa, ha noqoto waajibaadka naftiisa shakhsiyan ahaan sida lagu leeyahay, sida cibaadaadka maalin walba, salaada, sakada, soonka, iyo waxyaabaha mujtamaca markaas ay uga baahan yihiin oo iyadana loo yaqaano social responsibility, sida iskuol inuu qofka aado, shaqo inuu qofka aado oo soo shaqaysto, ama uu bulshada la macaamilo. marka waxaa dhici karta qofka in haddii ay cognitive functioning tahay oo maskaxda ay ka socoto, siyaalo loo caawin karo oo ama fikirka ama xasuusta kor loogu soo qaadi karo, oo qofka laga yaabo dadka qaarkiis in ay baran karaan, oo markaas maxaa la yidhaahdaa aqligoodii kor soo kici karo. waxaa kaloo laga yaabaa oo iyadana dhici karta, waxaa kaloo jirta tikniikyo kale iyadana oo qofka haddii waxuu bartay ay tahay iyadana laga dhaadhicin karo, oo maadaama waxaan u bartay si kale wax loo bari karo, wixii u bartayna markaas laga baabi'in karo, oo qofka markaas uu normalkiisa kusoo noqon karo. dabeecadda oo iyadana dhici karta in qofka yara uu la soo koray waa in uu isku darsaday labadii arrimood aan soo sheegnay, taasoo iyadana loogu yeero onset of intellectual and adaptive deficit. waa tii maskaxda, fahamkii, fikirkii, kuwa xasuustii, kuwaas oo xagga maskaxda iyo central nervous systemka ka socda, iyo tii uu bartay qofka ama se u tababarnayn aan la barin oo uu la soo weynaaday. taas iyadana waa midda saddexaad oo markaas sii adkeynaysa arrintii markii hore jirtay, taasoo ah tii saddexaad iyadana. marka laakiin qofka la leeyahay wuxuu qabaa intellectual disability, waa in laga helaa saddexdaas dabeecadood oo ay soo hoos galaan dabeecadahaas faraha badan oo dhan. marka dadka qaba, marka aan u soo laabano dadka qaba intellectual disabilityga, isku mid ma aha, isku noocna maaha. intii aan hadda soo hadlaynay waxaan ka soo hadlaynay si guud, laakiin isku mid maaha. 80% dadka waxay u qabaan cudurkan si khafiif ah, mild loogu yeero, lagamana dhex garan karo bulshada. sida keliya aad ku garan kartaa waa haddii aad la degtay
haddaad guursatay iyo haddii macaamil fara badan idinsoo dhex maro ayaa laga yaabaa inaad markaas wax ka dareento. hadday ilmo yar yihiinna ma qarsan karaan oo yacni waxaa laga yaabaa dhaqsadiiba in laga dareemo. moor qofka uu yar yahay moor dhaqsa laga dareemo. marka uu weynaadana wuxuu bartaa siyaalo qofka uu isu qarin karo. marka muddo dheer ayuu qofkaas si kastood u aqli badan tahay isaga ka qarin kara. taas isqarintaas naftirkeeda iyadana waxay tahay nooc aqliga ka mida. okay dad ba iyagana dhexdhexaad ka tahay, kuwaas 80% waa kuway khafiifka ka tahay inta lagu qiyaaso. 10% waxaa lagu qiyaasaa inay moderate yihiin. meesha dadka ay sida xun u hayso ama severe ama profoundga u hayso ay yihiin 5% iyo 1%. taasna waxay tilmaamaysaa dadka intellectual disabilityga qaba in aysan in dhexdooda uu u dhexeeyo farqi weyn. dadka sida aadka u qabana percentagekooda uu yaryahay. insha allah barnaamijka midka xiga amase midka xiga waxaan ka hadli doonaa intellectualka ama aqliga waxuu yahay iyo aragtiyada kala duwan laga qabo dadka waxyaabaha kala duwan diimaha kala duwan belief garaysan iyo culumta kala duwan naftirkooda siday aqliga uga hadleen iyo waxa intellectualka la yiraahdo. insha allah dadkii ka qayb qaatay xaanshiyahan soo qoray insha allah idinkana waan idin jawaabi doonaa. subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wanatuubu ilayk.